السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام دمان أصحابتي غالية أصحابتي غالية سيتهين في عنتهين من بتخبتين إلهي إذن كيس ويدي رجينا صاحي بيال وسود وهذا welcome خير يفرح لسود وهذا هذا نوع سبتهين ما شاء الله welcome channelkan waa kii haweenka Soomaaliyeed maaha kii maamuwaana ay ku taqaaneen soo barasho wanaagsan haddaad xaggaa nagala bilowdo iyo haddaad tahay saaxiibadeeni hore ee xaggana soo fariistay khayr allah idin siiyo soo dhawaadihee welcome channelkan waxaa loogu talagalay qaas ahaan haweenka soo gabar haddaad tahay insha allah nala soo fariiso hadduu ilaahay ka raali noqdo si markaas wixii adeegay gabdhaha loo wado adigana aad u hesho insha allah barasho wanaagsan saaxiibada qaaliga meelo kalaan macquul saaxiib ku nahay oon wada fadhinaa marka halkaana kusoo dhawaaw xaggaan saa idiin sheegayba aan idinkugu soo celceliyay waxaa loogu talagalay dumarka ama haweenka ama gabdhaha amuurta khayr allaha ka dhigo saa ujeedaan biciwaanka waa arrimaha haweenka wal haweenka howl badanaa u taalo ani waagi hore waxaa isdhihi jirayba gabdhaha xoogaa ayaa sheekadooda easy waa laakiin hadda waxayba noqotayba inay annagii nagu badan tahay sheekada sidii hadda xaalku u egyahay allaha noo sahlo allaha noo saqiro ilaaha noo doortay saaxiibayaalow iyo warrama xaalkiina ka warrama nabad iyo farxad iyo khayr ayaan ilaahay ka rajaynaynaa dhammaanteenba maasha allah gabdho badanaa ila soo xiriiro muddo dheerna ila soo xiriiri jiray waa ka xumahay saaxiib inta ay soo raadiday inaa i weysay ilaaho aan lees waayin waa un la kala mashquulay adduunya beenley waaye mashquulkaas adiga ku haysto anna waa i haystaa kan ani i haysta macquul adna inuu ku haysto marka iyo sabar yaaye maamuwaana haddaa si gooniya u rabtay u sabar markaa heshane insha allah su-aalahaadii sheekadaadii salaantaadii isbarashadaada ha wacnaato allaha noo kasa dhammaanteenba maasha allah khayr allah idin siiyey gabdho programkan ama channelkan ama arrimahan waa arrin si qaase naloola jeclaaday aniguna aan ogolaaday inaan intaan waqti heli karo xaggaana aan imaado ku sheekaysano wixii su-aale inoo qaasa halkaan isku weydiino amaba aad dhageysatid hadallada qaar iyo ra'yadii qaar ama su-aalaha inta la weydiiyey aan ka jawaabayo si markaas bal adiguna aad inta dhageysato insha allah bal taada ula kaashato maadaama cidu kuu adeegi karin cidu si qaasa kaaga warqabi karin ood adiguna arrinkaaga ilaahay idankiisa aad adiga ka tahay mas-uul bal dhageyso waayo wixii laga sheegay walaasha hadday wacan tahayna waad rabtaa hadday sheekadu wareersan tahayna inaad ka leexataa ku habboon annaga dhan inagu habboon tahay khayr allah idin siiyo meel walboon adduunka ka joogno oo allahna siiyo duca layskama reebee dumarka mararka qaar arrimaha qabsado arrimahaas waa badan yihiin intaa yar tahay ama gabaru yar tahay runtii ma ogo gabar da-yar arrimaha haweenka haysto ma ogo waayo dadka yaryar waaba ka qarinaa oo ma u sheegno habarsaasi wax iga yihiin ma dhihi kartid gabaraadan dhalin adiga kale ma sheekaysan kartid taad dhashay hadduu ilaahay gabar kugu risaqay uma sheegi kartid waayo qof weynaata waxyaabaha qaar aday kugu egyihiin inay kugu ekaadaana runtii way qurux badan tahay marka adeegan wuxuu suurto gelinaa cabashadeena inaan uga sheekaysano si markaas haddii cabashadii jirto u xallino haddayna jirinna insha allah uga taxadirno anigu ra'yiga aadan u soo dhaweeyo waa markaa kumanaan gabdho Soomaaliyeed la shaqaysid oo cabashadiina ay tahay mid loo baahan yahay in laga sii sheekaysto gabadhan la shaqeeyo meel private aan kula shaqeeyo cabashadeedana halkaas aan ku xaliyay laakiin bulshadii oo dhan baahan waxaa laga yaabaa markaan videoga sii daayo ama dhageysigan aan soo daayo dabadeed dad badan inay dhageystaan laga yaabo inay toodana la kaashadaan ilaahay idankiisa wixii ciladana inay degdeg iskaga xaliyaan halkaasna waa inoo wada duco dhammaanteen marka waxaa la yidhi taladii adiga kaa maqan walaalkaa hee la taalaa khayr allaha siiyo anigana gabdhihii igu dhiirageliyey adeegyada aan ka shaqeyn inta u bogay igu sii dhiirageliyey gabdhaha Soomaaliyeed oo macquul inayna weligood i haleelina bal in loo sii baahiyo si markaas hadday talada wacan tahayna ee u qaataan hadday kasii cashar qaadan karaan uga leexdaan
amuurta kheyr allaha ka dhigo. gabar markaa tahay oo arrimo badan ay isku kaa qabtaan runtii sibood waa u baahan tahay. sibood waa rabnaa, allaha noo kaalmeeyo. bulshadeena gabar Soomaaliyeed inta badan dhiiragelin toosa ma hesho ama kama hesho. dhiiragelintu ama qalbi dejintu waxay ka mid tahay waxyaabaha aanan dadka loo sheegin ilaa qof family oo kuu beernaxo daqiiqada yar noloshiisa kaa siiyo marka uu ku yiraahdo habar saa sameynin, aabba saa sameyn, adeer saa sameyn, amaba ilaahay qof uu kuu soo jeediyay sawjkaaga ahaa haddaa gabar tahay, eheladaada kale ahaa, xataa saaxiibada marbaa loo baxsadaa. laakiin waa wax yar oo limid ah, daqiiqada yar. waayo maanta oo dhan haddii lagu wadwado waa lagugu dawaqayaa, adiguna cidi kuma hogaamin karto xorriyadaad rabtaa iyo farxad. marka allaha ku siiyo, allahana siiyo gabar Soomaaliyeed. xaq badanay leedahay, baahi badanay haysataa, wax badan way kasoo daaheen, tan haysatan allaha u barakeeyo. laakiin gabdho badanaa cabanayo. gabar markaa tahay wax badan ayaa isku dhex yaaci karo, si lagugu sheegaan laisku duduwi karin. ilaahay ha ku dhowre wayna cido ku ilaali karin. waa laguu digi karaa, inta badanse waa nalala doodaa. si fiican oo wanaagsan waxaan layskugu sheega way adagtaa. gabaray u fiirso ibni aadanka oo wada neerfis, maalin walbana baahiyaa jirto. mararka qaar waxaa dhacdo marka baahidaada laga hadlaayo in adiga inta dib lagugu soo jeesto lagu canaanto, oo adiga iyo macal baahidaadii laysla canaanto. la yaab male. maanta haddii adiga ay kugu dhacday, waxaa laga yaabaa isla adigii berri inaad baahi qof ku canaanato oodan isdhihin wale anaaba shalay baahi laygu canaantee maanta yaanan aniguna canaantii sii wadin. waayo ibni aadanku wuu iloobaa wixii lagu sameeyey ilaa ay sheeko takana adaga tahay maahe. marka in laysku asxaanfalaha waa fiican tahay. gabadha howlo badanaa sugo ama gabdhaha sugaan tii calaf lahaato. waxaa suga sawj iyo nolol ay hogaaminaysa ee hooyo ka tahay, iyada iyo fikradaheedana ay ku dhaqan karto. fikradahaadiina haddaanan iskuul lagu soo kobcinin, xaafadii waalidkaa lagu kobcinin, adiguna aadan waqti siinin, aad fikrado qurxan oo wanaagsan aadan ku kobcinin, halkaa khataraa imaan karto. sidaan anigu qabo gabdho badan ay ila qabaan, guur waa calafe, dhibaatooyinka guurku saasay noogu badan yihiin. gabdhaha qaar waxay dhahaan maamo intaasoo sano ninkii aan wada joogno oo nolol wadaagaynay maanta wuxuu u dhaqmayaa si inaan xataa guur naga dhexaynon saaxiib nahay camal, ama qofaan muhiim ahayn camal. markaas waa ka diidaa, waxaan ku dhahay inta badan dadka markay sheekaysanayaan aaday isku qarqariyaan oo dabeecadahooda xunayba qaryaanbo. soo qof kula sheekaysana waxaa ku filan hay soo wacanin ama hay soo raadsanin. laakiin ninku qabo ama ku qabi jiray muddo, waxaa ka qaban kartid malaha. dhibaataa kala kulantid ama dhibaato lagala kulmo ilaa indhahu banaanka kusoo istaagaan maahane. marka gabdha ilaahay ha noo kaalmeeyo. meel badanaan cabasho ka wadnaa, noloshii oo dhan cabashaan ka wadnaa. gabar kastoo Soomaaliyeed oon la kulmo ama aan la shaqeeyay oo aan cilad haysanin ma jirto. miday ii sheegatay midayna ii sheegin, ama ha kala ilowda ama ha istiraado waxba maamada ha ku dhibeen arrinkan. cabashadu aaday u badan tahay. gabadhaanan haysanin allaha ka hayo, ta haysatana allaha u fududeeyo. noloshoo dhanaa kulul, laakiin isfahankana meesha waa ku jiraa. isfahan daro reer kuma dhaqmo. mararka qaar adigoonaba reer lahayn ayaad adiga shaqsiyan kulushahay. dadka qaar inta la fiiriyaa la yiraahdaa waxaanoo kulayla iyo dabeecadda sidaan u qallafsan yaa kugu rabi doono, yaa kugu guursan doono, yaa u xilan doono. rabidda laguu sheega waa inaad muhiim tahay oo laguu xisho oo lagugu guursado wanaag iyo naxariis lagaa arkay.
marka adiguna ma xumidi noloshiyaa ku kululaysay qof walboo qaylina ama caytama ama howlihiisa isdardarsan yihiin haddaad aragto ama aan aragno noloshaa ku kulul. marka self care waxaa la yidhaahaa nagu yar oo nafteena ma keer garayno, wax fiican ma siino, waa la jecelnahay laakiin saan ula jecelnahayne uguma hadiyeyna nafteena wax fiican. wax emotion la yidhaha ama dareemo la yidhaahaa hawada ku jiro, mar waa tiiraanyotaa, mar waa dhaarataa oo waa guuxdaa, mar go-aanaad qaadataa haba qaldanaadii hadduu rabo, marba dhinacay sheekada u kacdaa, qaas ahaan haween markaa tahay, ilaa hormoonkiyaa nagu xiriiro wax qasqasaaya. marka waxaan jeclaan lahayn inaan sheekaysano gabdho, ka sheekaysanayaa hormoon, ka sheekaysanayaa xaal kale adduunyo, cilad nin naga qabsatay iyo xaajigii, awlaadii, noloshii, qurbihii, dhaqaalihii, howlo badanaa gabdhihii u qooshan. gabdho badanaa taagan. aniga haddaan fahmay wixii macquulsan shalay u fahansanayn, gabdho badanaa u fahansanayn maanta sidaan anigu shalay soo maray un. waana runo waa tii la yidhi geela 2 jir soo wada mar. marka wixii qof uu maro qof kale waa soo maray, ama wuxuu qof maraayo hortiisaa la maray. wax badanoo xanuun badanaa jiro, in laysku sheegaa oo xanuunkaa laga taxadiraa amaba aada iska ogaataa way fiican tahay. waayo qofka dumara oo daacade oo maskiina hadday cilada qabsato ciladahaasu ilaa qalbigay u dhaadhici karaan. gabdho badanaa niyad jabay, si xun loola dhaqmay, inta la guursaday la baabi'iyey oo laga tegay, inkastoo calafku uu qadar yahay. hase yeeshee gabadhu waa inay tahay gabar caqli badan ee maaragtay ilaahay idankiisa qiyaasi karto cadowga ama dadka fudud ama dadka seeflaboodka ama dadka degdegta badan ama dadka hadduu xataa guurkeedu baaba'ayo dhahayso haddii la furo feermaa ka jabayso. marka saa adig wax u og tahay ama u fahansantahay ama dareemahaagu yahay ummadda kale ma ogo, waa in laguu sii sheego lagu yiraahdo waxaad falaysid ha noqoto arrinaad adiga ka shaqaysay. haddaad ku faraxsan tahay go ahead, go-aankaagiba. marka arrimaha haweenka ma aha arrin hal mar la xalli kara maaha, arrin barasho u baahan waaye, xasil u baahan waaye. insha allah gabadha loogu deeqo hadday fahantay alxamdulilah, hadday fahminne hadda waa kahay fahmaduba waa nasiib. intaan ka gaarna leen howl qabanaynaa. kheyr allaha sii fikradaha gabdhaha igu caawiye ugu dhiirageliye. afkoos aniga waa tabiga idinkala shaqeeyo channelkeena kale maamo waana iyo meelo badan, si qaasana dadku ay u ballansadaan, ay u nafisaan, ka qalbi waramaan ciladaha ay la kulmeen. aniguba hooyaanahay, ilaahayna gabdho waa igu risaqay. gabdhaha soomaaliyeed oo dhanne hooyadoodii saaxiibtoodaanahay, walaashoodii wehelkoodii. allahana daysto. kheyr allaha ila siiyo. kolley waxaan aaminsanahay anagoon si qaasa iskugu ammaanaynin gabar hooyo inay noqoto ayaa ilaahay laga rajeynaya. hooyana waa wax macaan, waa qof macaan, nabaday jeceshahay, oohin iyo walwal iyo walbahaar kuma fiicno. waayo qof walboo la weydiiyo hooyadiis wuu jecel yahay ama wuu jeclaan lahaa hooyadiis inay u noolaato ama ay waqti isla qaataan, meel isla joogaan. hooyadaa hadday dhimato ilaahay u naxariisto, hadday kuu nooshahayna allaha kuu xifdiyo, adiguna allaha ku daysto. hooyo haddaad tahayna hooyo wanaagsan allaha kaa dhiga, haddaadan hayna allaha kuu kaso. gabar haddaad tahayna walaalaa tahay, wax la xumeeye ma tihid. walaa ninkii oo ku guursadoo ku xumeeyey ama nin soomaaliyeed ama ninkii ilaahay calafka ugu darayba in lagu xumeeya hun maaha, ama gabar kale ha ku xumeyso oo maaragta walaal iyo ehel iyo asxaab iyo intii ku ahayd inay ku xumeeyaan maaha, adiguna inaad wax xumeysaa maaha. insha allah guurkana mid nagaado allah kaaga dhigo. dad badan markii lala shaqeynayo cilado badanaa soo baxo. waxaa soo baxayso gabar rabi laheyd nolol iyo guur iyo awlaad iyo wax walboo khayra, hase yeeshee ka baqanayso ee guur diida. waxaa soo bixi karto gabar dhibkii loo geystay iloobi weysay ee meel la fadhido, amaba dad kale dhib loo geystay ka walbahaarayso oo meel la fadhido ciladihii ay kala kulantay. marka inaan isku caqli celino, inaan dhahno wax walbood helaysid waa calaf. gabar soomaaliyeed kheyr allah ku siiyo meel walbo adduunka ka joogtid, waxaa noo tahay saaxiib haddaad weliba qaas ahaan
halkan soo fariisatay nala joog subscribe kala sheegay iyo beelka iyo taabso halkaasaan saaxiib ku noqono insha allah danahaaga fadlan u fiirso waxa kugu socdo waa cimri inaad carootaa waa laga fiican yahay inaad walwashaa waa laga fiican yahay allaha noo kaalmeeyo walwal iyo walbahaar allaha naga haaye ragga runtii ayaguna waxaan u sameynaa sibood iyo meel u qaasa hadduu ilaahay ka raali noqdo ayaguna waa tegi doonaa meeshoodii janalkooda fikradaha lagula talinayo ayagana iska dhagayso rag hadday meeshaan nala soo fadhiistaane subscribe samaystaane kulley habkaan iskula hadlaynay kheyrka isla jecelnay dhagaha ka buuxsanayaan ilaahayna waxaan ka rajaynaa ninkii rageena dhagaysto cabashadeeni ciladaha iyo qalbi cidlada iyo dhibka naga gaaray ama guurka ama nolosha inay noogu naxariistaan hadday abti noo yihiin hadday adeer noo yihiin haddaan dhalna iyo hadday nala dhasheen iyo haddaan u dhaxnayba inay ragguna noo beernaxaan respectiga iyo sharafta iyo qiimaha iyo karaamada aan xaq u leenahayna inayna siiyaan marka waan ku faraxsanahay inaan idinkugu adeego talooyinka aan idiin soo mariyo channelkan idiin dhigo adiguna aad dhageysatid haddaad cilla dareemaysidna ilaahay ha ku caawiyo ilaahay ha kuu kaalmeeye in aad maaragtay bal reerkaagii noloshaadii dib ugu noqotid ood iska xallido haddayna waxba jirin wax walba kheyr ku yihiinne inaad ilaahay ugu mahadnaqda kheyrkaas dabadeedna maaragtay tartiib aad noloshaada u xallido annaga waxba ma xifdi karnee allahna dhowro marka waa idinku casuumay channelka waan idinku soo dhaweynaa haddii aad ku cusub tahay iyo haddii kaleba meelo kale aan saaxiib ku nahay subscribe ka saaro beelka taabso kursigaaga soo jiido hadday wax soo galaan talooyinka haweenka loogu talagalay dhinacaada ka dhagayso waxaan kaa codsanaya inaad suulka kor ugu soo taagto hadduu ilaahay ka raali noqdo si walaalaha kalena ay u helaan insha allah kilibyada soo geli doono channelka waayo haddaad adigu si boodo barnaamijyadii waa isi soo daba qabsan doonaan waayo waxaad ka heshay waaye waa in laguugu adeego talooyinka walaalaha ay quseeyaan marka gabar haddaad tahay bliis bilow self care ama keergaraynta naftaada ama dhaqaaleynta naftaada waayo naftaada waa muhiim gabaray haddaadan adiga naftaada jacayl u muujinin dadka kalena waxa u malaynaysaa way adigii lahaababa muuji waayo sax marka meelo badanaa saaxiib kuna haddaa janalka maamuwaana ee youtube imaan kartid iyo haddaa inta fadhiisan kartidba kheyr allah ku siiyo soo dhawow adoo nabada kheyr allah ku siiyo fadlan u fiirso noloshaada u fiirso caafimaadkaaga u fiirso farxadaada meel walbo adduunka ka joogtid naftaada xaqay kuugu leedahay adoonan caroonin adoon go-aan degdega qaadanin inaad maaragtay xisaabtanto ilaa da-daadii baa dhashee marka insha allahu kheyr da' walboo jirtid aqliga kugu kordhayo kalsooniha kugu korodho u ogow inaan haweenka aad maaragtay loo koolkoolin waayahana aada loo sii dayacay laakiin annagana danteena gacanteenay ku jirtaa ilaahay ka sokow marka haddaad kulayl dareento noloshii kulaylka dareentayna sabar insha allah haddaad qabow iyo naxariis iyo qurux dareentayna ilaahay ugu mahadnaq saaxiib haddaad janalkan la noqoto howlo hoosaa kuu soo socdee dhagayso adoon boodin xanaaqin maaragtay dhiiragelin aada ummad ku maagta aynan kuu noqonin dhagaha ka buuxso cindigaaga la kaasho tartiibtaada noqo I love you I love you I love you waa inooya barnaamijka kale hadduu ilaahay yiraahdo kheyr badan iyo farxad badana ilaahay inoo wada weydiina dhammaanteen hay waa islaamee saaxiibadii aan jeclaayo haweenkii soomaaliyeed oo soo dhawaada oo shalaysay dumarka soomaaliyeed assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh